kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qisadeena jecel ee taxana inoo aheeday mahad iyo maandeeq qeybteedii 19aad maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kordhayay jaceylka iyo xiriirka u dhaxeeya Maryan iyo Maxamuud oo ahaa ninkii qurba jooga ahaa waliba maalmaha qaar waxa ay si qarsoodi ah ugu tagi jirtay hotelka uu magaalada ka degan yahay halkaas ayaana sheeko macaan iyo baashaalkii kalena lagu wadaagi jiray Maryan qalbigeeda waxa ku abuurmay jaceyl ay u qaaday Maxamuud oo isaguna weligiis aad u jeclay Maryan mar walba waxa ay ka fikiraysaa sidii ay mahad ugu tagi lahayd oo ay Maxamuud nolosha ula wadaagi lahayd isaga laftiisa wuxuu Maryan kula taliyaa mar walba in ay u soo laabato mahadna ay ka soo tagto maanta Maryan waxa ay go'aan ku gaartay in ay bilowdo qorshihii ay mahad ugu tagi lahayd ugu horeyna waxay dareentay in haddii ay ilmo u dhasho ay ku adkaanayso in ay ka tagto durbadiina waxay bilowday inay isticmaasho dawada ka hortagta dhalmada marka labaadna waxay go'aansatay in ay mahad dareensiiso in aysan jaceyl u qabin waayo habeenkii xilliga ay doonto ayay xaafadda iska timaadaa maba moodid in ay tahay marwo la qabo oo xaafadda mas'uul ka ah Maryan ninkeeda kuma qabo wax daryeel ah xataa dharkiisii ma dhaqdo cuntadana uma sameeyso habeenkii marka gogosha la tagana uma muujiso wax jaceyl ah waayo wax raaxo ah kuma qabto maadaama oo aysan jeclayn ogow dareenka dumarka jaceylka ayuu ku xiran yahay waxaasi oo dhan waxa ugu sii daran weji xumada iyo hadal adeega ay kula hadlayso mahad wuxuu shalay iyo qoomama ka joogaa marwadii sharafta badneed ee uu soo xumeeyay ilaa iyo maantana wuxuu ilaawi la yahay wanaagii ay u sameysay iyo dhibtii ay la soo martay wuxuu dadka ugu sheekeeyaa in uu maanta dhex taagan yahay oo uu haysto nafsigii uu horay u soo galay maalintii dambe ayuu u adkeysan waayay nolol xumada uu ku jiro wuxuuna si qarsoodi ah u soo daba raacay xaaskiisa oo inta ay casirkii labisatay suuqa u sii baxaysa iyada wax shaki ahba ma qabta waxa ay meel lagu nasto ugu tagtay jaceylkeedii Maxamuud oo ay meesha ku balansanayeen socodkii ay soo socotay Maxamuud intuu habsiiyay ayuu labada dhaban mac ka siiyay mahad oo gadaasheeda soo socday inta uu meel dheer ka arkay ayuu ku sigtay in uu jooga ka dhaco naxdin darteed wax xoogaa ah ayaa la sheekaystay iyada oo mahad arkaya isaga oo dhuumanaya oo meel luuq ah isku qarinayo balse iyagu aysan arkaynin dadkuna ay u maleeyaan lamaano isqaba in yar ka bacdi waxaa la wada galay qolkii uu deganaa Maxamuud isla markiina hoosta ayaa laga soo xirtay mahad wuxuu soo xasuustay habeenkii uu maandeeq qolka hoosta kaga soo xirtay oo uu ku waxyeeleeyay sida qof waalan ayuu ku dul wareegay qolkii waxa uu sameeyo ma yaqaan inuu waasho ayuu ku dhow yahay albaabkii ayuu feer iyo haraanti ku bilaabay isaga oo qeylinaya oo leh hataabanin waryaa hataabanin nimankii hotelka iska lahaa oo nin waalan u qaatay ayaa mahad garbaduub u qabteen kadibna booliskii ugu yeeray oo jeelka ayaa loo taxaabay mahad isaga oo waalan rabo oo oohin iyo qaylo isku daraya ayaa inta la jeebeeyay ayaa xabsiga loo qaaday waqtiga markii uu madoobaaday oo gabalkii dhacay ayay Maryan inta ay aayar iska soo baxday ayay aaday gurigeeda habeenkaasi daran ayaa haysay inkastoo ay ogeed in mahad la xiray oo xabsiga loo taxaabay haddana waxay og tahay wax walba inuu dhici karo markuu waagii baryay ayaa loo ogolaaday inuu reerkiisa wacdo wuxuuna ogeysiiyey inuu xabsiga ku jiro odayaashii iyo waxgaradkii uu ka soo jeeday ayaa xabsigii ugu yimaaday iyaga oo taliyihii xabsiga weydiiyey sababta loo soo xiray wiilkooda mahad wuxuuna u sheegay taliyihii in mahad isaga oo sarqaan ah uu xalay hotel weeraray sidaasna loo soo xiray odayaashii yaab ayay ku noqotay oo hadalkiiba ku dhegay isla maalintaasi ayay damiin ku soo daayeen odayaashii balse wuxuu soo baxay isaga oo bushinta cunaya oo leh dhiig ayaan gali oo wax baan dili odayaashii yaab ayaa ka soo haray waxay ku yiraahdeen war maxaa jira bal inoo waran sidee wax u jiraan wuxuuna u sheegay arrintu siday tahay iyo sidee wax u jiraan isagoo leh naagtaydii nin kale ayaa qabo ninkaasna waan dile iyadana waa dile ayuu hadalkii ugu soo koobay odayaashii oo ka baqayo inuu ninka dhiig kala galo oo gabadha dila ayaa xaafadiisii geeyay markii xaafadiisii la geeyay ayuu Maryan ku booday balse waa laga qabtay caay iyo aflagaado oo dhan waxba uma reeban Maryan meeshaas ayay oohin qabsatay waxayna ku tiri odayaashii aniga xaafadda kama baxo cid iigu timaadana ma jirto maalin walba ceebtaas iyo waa lagu qabaa ayuu ila daba taagan yahay
aniga ayaa ka xishooda oo ka aamusan waa alla mahadii haddii aad ogaateen maanta ninkani warqadeydii iga siiya lama noolaan karo oo nafteydaba kuma aamini karo. intaas markuu maqlay ayuu soo xasuustay maalintii uu dafiray maskiintii sharafta lahayd ee uu isaga u horeeyay. qalbigan wuxuu iska yiri walle malaha wixii aad gashay baa laga jarayaa. mar wuxuu isku maleeyaa in uu waalan yahay oo una fiyoobeen oo wuxuu leeyahay war nin yahow armay indhahaygu ay qaldeen misane waxaa hor imaanaysa waxyaabihii uu indhihiisu ku arkayay malaha manuulid ayuu isleeyahay. la soco qaybta xigta duu rabbi raali ka noqdo daawada ha iloowin haddii aad channelka cusub tahay inaad subscribe dhahdo channelka muuqaalkana aad like saarto siina share garayso. mahadsanidin.